lacagta qaliijka ee awal ku soo gali jirtay qaabka wahaabismka qaabka loo yaqaan ee kitaabada iyo timirta iyo masaajidada maaragtaa kooban oo labada maaragtaa 10 mitir ama 20 mitir lagu dhisi jiray ayaa qaabkan markaan waxay ku soo galaysaa waa tan lacagta Sacuudi Carabiga ah ee qaab istiraatiiji oo siyaasadeed awal lacagaha waxa la soo marin jiray dadka ardayda ka ahaa ee jaamacadooda ka soo baxay jaamacaduhu ma aha kuwa dhaqaatiirta injineerada dabcan nama siyaanba Sacuudiga injineeri iyo dhaqaatiir ay nasiyaan anigu ma maqal hadad maqashaan adinka soo sheegi doona awal waxay noo soo dhiibi jireen waxyaabaha shariicada ku saabsan qaybaheeda kala duwan oo quraanka tafsiirka xadiista luqadaha qaybteeda carabiga wax qaybaha noocaas ah ayaa waxa markii hore ardayda noogu qaadi jireen ayay wixii dib markay u soo laabanayaan ay fikirkooda iyo maaragta afkaarooda markay u soo dhiibaan kadib ayaa waxa la soo raacin jiray qaybahooda aadka loo muhiimka u ah ama sirdoonka u qalmaahay in lacaga la soo raaciyo lacagahaasna ama qaabkay doonaan ku yimaadeen hay'adaha lagu tilmaamo qaab masaajidada yar yar oo la dhisi jiray ha ahaado asa ahaatee qaabkan markaa way ka duwan tahay in wadaad ay lacag u soo dhiibaan qaliijka gaar ahaan Sacuudiga markaan waxay soo galiyeen lacago guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan Hargeysa iyo Burco ayay waxa lacagii ay soo galiyeen waxa ku kala qaybsamay bulshada iyo qaybaha kala duwan ee beesha Isaaq taasoo sababtay in siyaasadda aad iyo aad lagu kala fogaado iyagoo qayb yar oo minority ah oo aan aqlabiyad ahayn ay raacday yuhuudda iyo howlahoodii iyo Cabdisahyuuni ay la go'een halka intii kalena waa waxaan ka hadlaynaa guud ahaan dadka sida u kala fadhiyaan intii aqlabiyadeedu badnaydna ay qaadatay fikirka ah lacagta Sacuudiga inay shaqeyso ay dhaqaaqdo maanta shir jiraad waxa qabtay Cabdi Xaashan ognahay asagana kudlad yar haysta oo ayagu xisbi bay u yaqaanaan kudladaas oo ka haleeyraado meeshaas ayuu maanta ku batarinayay isagoo ka muuqato istiraatiijiyadda iyo lacagtii Sacuudiga ka imaatay taasoo sababtay inuu maanta ilaa heer u gaarsiiyo waxaanu saaranahay xiniyahan iyaga mana yeelayno lacagta goonigosadka waxa loo yaqaan yuhuuda isagoo ka afgubadsanaya oo isagoo hal qabsanaya Qudus hasa ahaatee ujeedkuna uu yahay in Netanyahu aqoonsigiisu ka soo horjeeday maadaama isaaqu aysan ka kaftamin arintaas horana loogu maaragtaa loogu sumeeyay ay ku sumoobeen arinkaas haddaba lacagtaas kala qaybisay ee Sacuudigu soo dhiibay bulshada Isaaq